halkani waa degmada Xafuun waxaana muddo ku dhow 100 sano ka hor dawladda Talyaaniga oo gumaysan jirtay qaybo kamid ah dalka Soomaaliya ay ka hirgelisay warshad cusbada ama milixda soo saarta taasoo ay muddo sanad ahna milixda ka soo baxda ay u iibgeyn jirtay qaar kamid ah dalalka dunida. degmada Xafuun waxay ka tirsan tahay gobolka Bari magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxay u jirtaa 380 kiiloomitir hurdiyana 9 mayl ayay u jirtaa Xafuun marka aad jooga Xafuun aad dhanka badda martid oo dooni aad ku safartid ama laash hurdiya waxaad ku tagi kartaa ugu badnaan 25 daqiiqo balse dhanka gawaarida marka aad ku safartid waxaad u soconaysaa ilaa 2 saacadood taasoo ay sabab u tahay wadada oo ay adag tahay inay gawaaridu xawaare sare ay ku socdaan. Xafuun waxa ku wareegsan bad hal wado ayay leedahay. warshada cusbada waxa su'aalkeedu ugu horeeyay waxa uu soo baxay sanadkii 1937 waxaana intaan ku jiray diyaarinta barnaamijkan ii suurto gashay inaan helo muuqaalo laga duubay warshada iyo cusbada xilligaas. dhawaan ayaan tagay deegaanadan 2 meelood ayay ku kala yaalaan beerta cusbada iyo goobta ay warshadu ku taalo. beertu waxay ku taalaa deegaanka Hurdiya oo aan ka fogeyn degmada Xafuun halka warshaduna ay ku taalo degmada Xafuun. meesha warshada ku taal iyo meesha production ka soo baxo laba kala ahaayeen. productionku wuxuu ka soo baxaa Hurdiye warshaduna waxay ku taalaa Xafuun marka waxa jira 1937 ayaa waxa lagu guuleystay in la sameeyo meeshii milixda laga soo saari lahaa ilaa iyo 312 god oo milixda lagu sameeyo oo beer ah ayaa la sameeyay marka ka bacdi waxa loo qoray shaqaalahaas waa kuwa qaarna beeray markii ay soo go'dana waxa la sameey jiray meel darbaal loo goglay oo baa sida loogu wadeyn jiray oo buurar baa laga sameeyay marka buurar waaweyn halkaas shaqaalahaas baa hadii ilaahay maayo shaqada hayay waxay is weydiin mudan waa sidee qaabka loo beero cusbada mar kale waxa sharaxaya Axmed Cali Cabdullaahi isla markaasna taariikhda warshadan xoogaal u ah. waxa la qodayaa dhulka marka dhulka la qodo waxa la cabirayaa 20 mitir oo saas ah iyo 30 mitir oo saas ah ama 20 boqol baa la cabirayaa ama 50 boqol baa la cabirayaa marka waa la qodayaa markaad qodo hal nus mitir aad qodo waxa soo baxaysa badii waa soo baxaysa dhulku waa adag yahay badaas anagu wax kuma daro fertilizers kuma daro dawo kuma daro hadii ilaahay milix kale kuma daro badaas noo qalasha waxa noo qalaysa qorraxda roobka marka ku daa iyo badii isdhex galay baa qorraxdu noo qalajisa markaan 3 bilood u kaadino ay badii gurto milix baa nooga samaysantaa milixdaas aanu ka guranaa dhinacaan tuumina markaan dhinaca tuumino milix bay noqonaysaa milixdaas aanu rabnaa iibsanaa marka sidaas loo beeri jiray laakiin gaaladu iyadu waxay ku darajinay soo dedejiya productionka soo dedejiya inay soo baxdo hadii wana wax iyadu week ka yar bay ku soo saari jiray xirada markay qodho meesha anagu 3 bilood sugno oo anagu farsamadayadu waa farsamadii halkeenayo maaha farsamo cilmiyeysan ama engineering ah ama hadii ilaahay maayo qalab lagu daraayo maaha laakiin gaaladu waxay sameeyay jiray 7 beri waa laga guri jiray every 7 days waa laga guri jiray. warshada iyo beerta cusbadu hadii 2 meelood ay ku kala yaalaan qaabkii ayaa marka ay beerta ka soo go'do loo geeyaa ama loo gaarsiiyaa xarunta warshada meesha la Shantaraale
oo dhexda ah oo warshadaha dhexdooda ah baa waxa laga sameeyay tarafeelayaal bahalalayaha oo badda mara tarafeelayaashaas waxay ka bilowdaan hurdiye meesha cusbadu ay ku taal waxayna dhex maraan qooriga hurdiye dhex maraan waxayna tagaaneen irgaafo meel la yiraahdo oo dhinaca kale badda ah ka bacdina baadiyaha xaafuun dhexdeeda waxa mara tarafeelayaal kale tarafeelayaashaas waxay toos u tagaaneen warshadii meesha ku ooleyd daarta warshada waxa la oran jiray برمجال markay tagaan برمجال lagu warshadeynaya ka bacdi waxay si dhex maraysaa tuubadaas waxay galaysaa daar la yiraahdo silose oo iyadoo sidii saa u godan oo sida guryaha deegaanka baarlamaanada oo kale loo dhiso saa u godan daartaas markay dhex gasho daartaas amsana tarafeelayaal kale ka tagayaan waxay galayaan badda xaafuun waxa ku dhex taala daar badda ku dhex taala oo arki doontaan oo la yiraahdo Attenzione Mario daarta Attenzione Mario waa daarta ugu dambaysa oo markabku uu ku soo xiranayay milixdii hurdiye lagu sameeyay oo halka laga qaaday waxa qaadaya bahalo cirfiyeed la yiraahdo oo cable israacaya cable bay raacayaan cable kaas ay raacayaan laba xabay ahaayeen mid waxay qaadaa kontonkiis 25 kintaal laba isdhaafa midna waa si socotaa andato return bay kala ahaayeen si socod iyo soo socod midna waa si socotaa midna waa soo socotaa dhawaan maraan tagay keedadka beerta cusbada oo qaab buur u samaysan ayaan ugu tagay dad qota oo wali ka shaqaysta ka shaqeeya walaxda 35 dumar weeye 35 waa rag ma gartay qoli kunta ayaa ka shaqeeya noo diiwaan gashan la safaynaya waa la habeynaya wala dhaqaaya teeda kaleeto way isku dhagaan qolof adag bay sameeysaa qolofta adag baa laga qaadaa markaas ciid laga qaadaa la nadiifiyaa markaas iyadoo baylo cad soo hadhaa waxaan kaloo aan ku arkay deegaankan waddo u samaysan sida kuwa tareenada taasi ay soo mari jireen gaadiidka qaadaya cusbada waqtigaan tagay deegaanka cusbada waxaana si wanaag aan ugu tagay rag iyo dumar ka shaqaysanaya oo dhaqaalaha ay ka helaan ku dabara nolol maalmeedkooda hoosta saas aan baro kicinaya markii hoosta laga kiciyo markii la doono ciidaas laga guraya baaka markii saa loo kiciyo inay dubo weyn oo bismillaahir rahmaanir ugu soo ridaya lagu gaabinaya wixii wasakhawa dibadda loo tuuraya inta habeensan oo nidaamsanna halkaas la dhigaya markaas kiishka lagu cabeynaya jawanka keedadka cusbadan oo ilaa 5 kiiloomitir isdaba yaala ayaa mar aan weydiiyay dadka aan la kulmay waxay i xaqiijiyeen inay ku rajawan yihiin in aysan ka dhammaan isla markaasna haddii ay dhammaato ay uga faa'iideysanayaan xilliyada roobka oo ay farsamaysanayaan boqol sano ka hor haddii dalkeenu uu lahaa goobaha noocan oo kale ah lagana helo waxyaabaha daruuriga u ah cunnada oo ibni aadamku la'aanteed uusan cuntada cunin maxaa hortaagan in laga faa'iideysto kheyraadka dalkeenna ku duugan mase jiraa qorshe dib loogu kicinayo warshada cusbada ee xaafuun laba kabani baa tagay intaan hubo hadeer oo midna Mareykan yahay midna Kanadiyaan yahay waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa inaanu keenno nidaam lagu shaqeeyo oo kii oo kale taa oo aan hadii la hadmayo dawladda Puntland waa ay u tageen madaxweynuhu waxaan umaleynayay inuu ogolaansho siiyay waan ka warsugaynaa hadii la hadmo hadii ay yimaadaan waa resource-ka koowaad baan aaminsanahay anuu resource-ka koowaad ee Puntland marka laga yimaado ceelasha shidaalada iyo xoolaha nool inuu noqonayo milixda sababtoo ah waxa weeye waa wax badan kamiyad badan baa laga heli karaa cabdinaasir maxamed yuusuf buraale waa cilmi baare ka tirsan hay'adda horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in bulshada Soomaalidu aysan ka faa'iideysan kheyraadka dalka waxa uu tusaale u soo qaatay sida loo dayacay warshada cusbada waxa moodaa wixii la dhigay qarniga hore inuu wadi doonayno wax dambe aynan beeran sida aragto waxaas oo jaamac cadaana waa cusbo waxa ka muuqata in meesha maalgelin badan shaday Talyaaniga marka uu qarniga hore shaqada intaan leen qabanayay oo aynu ka hooseynay inagu tabar iyo caqli aynu ogeyn basoo ku yimid waxa isweydiin la qarniga bacdi anaga maxaan qabanay birta uu dhigtay badda dhexdeeda wali waa noo shaxay markaas su'aashu waxa weeye haddii uu qarni ka hor garanayay birta aan dhaxlaysanayna qarniyo noolaan karta Soomaalidu maanta ama samayn kartaa hal musbaara
cusbada xilligan laga qodo hurdiya waxaa la geeyaa deegaano ka mid ah gobollada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari ee Soomaaliya. kiishka cusbada ah waxaa xoogsatada ka shaqaysata lagaga iibsadaa 40,000 oo shilinka Soomaaliga ah ama $2. kiishka $2 baan laga siiyay $2 kiishka weyn weynaada kiishka $2 markii yaa idinka siistaa baabuur riidaasaa naga siistaa iyagu xagee u suuq geeyaan iyaga boosaasi geeyaan qiimuhu aad buu hooseeyaa misalan jawaankii waa 40,000 ama $2 oo lacagta Mareykanka ah intaas ku tagtaan oo xitaa gaadiid iibsataan maadaama aad ka cabanaysan gaadiidka qaadan miyadan qiimaha kor u qaadi karin milixduna waa waxa ugu badan ee qutriyom ku jira inta aysan ku jirin oo aan la isticmaalin wayarta ma jiro walaal wax qiimaha ku badan sababtoo ah meel la geeyaba male taas oo wax laga yaabay laga joogayo gobolada waxa weeye usbuucyo ay ka baaqdaan waa qaadaan boosiga iyo iskaga rogaan waa ka soo noqdaan waxa loo dhigaana waa isla dalka gudihiisa meel dibadda loo qaadaa warshada cusbada ee Xafuun ku taala xilligan ma shaqayso balse wali waxa la qotaa kaydadkii cusbada oo ku yaala hurdiya haddii warshadan dib loo kiciyo lana sii hormariyo dad badan ayaa shaqo ka heli kara dalkana waxay ku soo kordhin kartaa dhaqaale waxaa kaloo xusid mudan in dawladihii rayidka ahaa iyo dawladii kacaanka ee Soomaaliya inaysan midna isku hawlin ka shaqaysiinta warshadan sida aan ku ogaaday baaritaanka aan ku sameynayay taariikhda warshadan iyo beerta cusbada dadku waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan sanadkii 1990kii iyagoo ilaa xilliganna ka ganacsada oo qota kaydadkii cusbada halkan talyaanigii ayaa cusbada dhigay 1918 ilaa 20 meelahaas ayaa lagu qiyaasay inuu dhigay sida qoran ma garatay milixdan waxa weeyaan anagu inta aan burbur u dhacay ayaan sideed u soo wareegnay macnaha shaqahan macnaha ka bilow ma garatay wax kasta waan hayn orda shaqada duruufteeda rag naga horeeyay baa ka shaqeyn jiray aniga kula hadlaaya milixdan hadda intii ku cadday biladu bilaabatay baan macnaha ka soo qaxayo dibadda ka soo baxayo waxaan door biday inaan cusbada jafto intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijka warshadii cusbada ee Xafuun iyo hurdiya waxaan safarada aan halkaasi ku tagay aan uga mahadcelinayaa oo gacan ka geysatay hay'adda horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC